Afhayeen ku-xigeenka Golaha Xildhibaanada ee Dowlad-deegaanka Dhexe ee Itoobiya, Marwo Maneta Mulune, ayaa sheegtay in kormeerka hoggaanka sare ee xisbiga Barwaaqo uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu qiimeynayo sida qorshayaasha xisbiga loogu dabaqo mashaariicda horumarineed ee dalka. Waxa ay tilmaantay in kormeerka lagu booqday magaalada Finfinne uu muujinayo sida aragtida xisbiga Barwaaqo ay ugu dhaqaaqday ficil dhab ah, iyadoo xoogga la saarayo adeegyada bulshada, guryeynta iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Waxa ayna sheegtay in dowladda federaalka iyo maamulada hoose ay si dhow uga wada shaqeynayaan isu duwidda qorshaha horumarinta qaranka, taasoo horseedaysa kobac dhaqaale iyo isbeddel muuqda oo ku saabsan nolosha shacabka. ስናይ በጣም ብዙ አካባቢ ላይ አይገኝም። ሀይቅ ያለበት አካባቢ ብቻ ነበር። ያን ደግሞ የሚያገኙት በጣም ለግጀሪ ለመዝናናት የሄዱ ሰዎች ናቸው የሚያገኙት። dowladda federaalka iyo maamulada hoose waxay si dhow uga wada shaqeynayaan isu duwidda qorshaha horumarinta qaranka, taasoo horseedaysa kobac dhaqaale iyo isbeddel muuqda oo ku saabsan nolosha shacabka. Duqa magaalada Walayta Sodo, Itaage Hayle Maryam, ayaa dhankeeda sheegtay in booqashadan ay qayb ka tahay dhiirigelinta iyo barashada waayo-aragnimada mashaariicda guulaystay ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka. Waxaana ay tilmaamtay in xisbiga Barwaaqo uu xoogga saarayo horumarinta magaalooyinka iyo miyiga si loo xaqiijiyo cadaalad horumarineed iyo wadaag kheyraad. Iyada oo xustay in mashaariicda laga hirgeliyey Finfinne ay tusaale u yihiin hoggaan sugan, qorshe midaysan iyo ka jawaabidda baahiyaha shacabka, taasoo ah dariiqa lagu gaari karo horumarka iyo barwaaqo waara. መልክ የነበርነውን ቆይታ ተጨባጭ ላይ መሬት ወርደን ያየንበት ሁኔታ ነው። kormeerka hoggaanka sare ee xisbiga Barwaaqo waa tallaabo muhiim ah oo lagu qiimeynayo sida qorshayaasha xisbiga loogu dabaqo mashaariicda horumarineed ee dalka. Mas'uuliyiinta xisbiga Barwaaqo ee magaalada Finfinne ayaa sheegtay in lagu dadaalayo sidii loo dabooli lahaa baahiyaha guryeynta ee muwaadiniinta iyadoo la raadinayo fursado horumarineed oo kala duwan oo ay ka mid yihiin deymaha dowladda, qaaraan iskaa wax u qabso ah, miisaaniyadda maamulka magaalada, maalgashadayaasha gaarka ah iyo mashaariicda guryaha ee gaarka loo leeyahay.